kulanti waxaan wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada in la socotay ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelan doono wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Xasan Suleymaan ama loo yaqaano Cawil mudane ku soo dhawaaw TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel waa dhawahay aad baan ugu ka mahadcelinayaa asxaabta Somali Channel fursadan waa dhawahay mudane intaanan marka hore guda gelin waraysiga gaar ah oo aynu kugu tala galnay inaan maanta kula yeelano marka koowaad waxaan rabaa inaad dadka u iftiimiso ama aad u sheegto Cawil waa kuma yuse yahay Cawil waa la mahadsan tahay anigu waxaan ku dhashay Soomaaliya gobolka Mudug waxaan ku koray magaalada Xamar waxaan wax ku bartay Soomaaliya iyo Mareykanka waxaan ka shaqeeyay dalal badan oo aan bangiye iyo hay'ado kale waaweyn u shaqeeyay dalkaas waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya waxaa ka mid ah Switzerland waxaa ka mid ah UK wadanka Ingiriiska oo hadda heerkaygu ku nool yahay intii aanan dawladaha u bixin wadamadaas u shaqeynay waxaan u soo shaqeeyay bangiga dhexe Soomaaliya marka taariikhdeeda waxbarashada iyo shaqadu waa taa weey waqti dhow oo 2013 2014 na waxaan wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta ka noqday dawladda federaalka Soomaaliya aan wax ka weydiiyay xilkii aad hanatay wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta Soomaaliya xilliga aad haysay waxyaabihii aad ku soo saacidisay wasaaradda iyo waxyaabihii ku qabsoomay bal wax inooga sheeg aad u mahadsan tahay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheyntu waa laba wasaaradood oo la isku daray culus waxaan ogtahay wasaaradda maamulka maaliyadda hadduu shaqeyn dawladdu ma shaqeyn karto anigoo taas ka ambaqaadayo oo xoogaal u ah waxaan xoog saaray inaan wax ka bedelo habkii shaqada ee wasaaradda oo markaa hooseeyey sababtoo ah dalku isaga muddo dheer ku jiray dagaal iyo shaqo la'aan iyo dawlad la'aan arrimahaasay wasaaradda iyo wasaaradaha kaleba waxay ka dhaxleen shaqo hooseyn aad u hooseeyo shaqadooda inay aad u hooseyso ayna tayo lahayn markaan tagayba waxay arrintaasi igu kaliftay inaan dib u habeyn ku sameeyo habka shaqada ee wasaaradda alxamdulillah wax badan baa arrimahaas iga hirgalay waxa la yidhaahdo BFM reform oo Public Finance Management Reform baan isla markiiba bilaabay in dib u habeyn lagu sameeyo oo horukac loo abuuro shaqada wasaaradda arrintaas waxay kala shaqeynayay hay'ado caalami ah World Bank iyo IMF iyo ay ugu horeeyaan oo xagga iga taageeraya xagga technicada arrintaasi si fiican buu horgashay barnaamijkaas barnaamij national weeyo ilaa hadda socda oo ku fiday dowlad goboleedyada ku fiday sidii loogu talagalay buu u hirgalay una socdaa laakiin inuu dhamaystir waxay qaadanaysaa sanooyin kale 2-3 sano kale bay qaadanaysaa inuu dhamaystirmo waxaan ku faraxsanahay dadkii iga dambeeyay inay sii wadaan barnaamijkaas oo uusan dhiman istaagin waxaa ka mid ahaa dalkeen wuxuu markii ay dawladdan dhacday dalkeen dawladda wuxuu ka qabay deyman badan markii ugu horeysay waxaan hirgeliyay in adduunyada aan kala hadlo dadkii dawladihii nagu lahaa deynta sidii deynta loo ka cafin lahaa ilaa inaga hadda dhaqaalaheenu ma kabcino ma aynu bixin karno deyntaas barnaamij wuxuu ahaa isaguna aad u fiican oo meel fiican isagoo maraya shaqadu iga dhamaatay waxaan aad u rajaynayaa in isaguna sii socdo oo dadkii iga dambeeyay ay meeshii loogu talagalay gaarsiiyaan waxaa gaarsiiyey in ay la isla ogolaaday annaga iyo dadkii deymaha nagu lahaa in Soomaalidu xaq u leedahay in laga bedelo deynta in deynta laga cafiyo waanu isla garanay laakiin loo baahnaa in Soomaalidu tallaabooyin qaado ay ku kasabto deyntii in laga cafiyo oo ay meel marto cafigaas meel maro maxay ka mid tahay deyntaasi lagu lahaa Soomaaliya iyo siyaabtii loogu yeeshay haddaad wax nooga sheegi karto waa su'aal fiican dawladaha soo korayo inagoo kala ahi waa qaataan deymaha waxay ka qaataan hay'adaha caalamiga ah oo maaliyadda sida World Bank
ama international monetary fund waxay ka qaataan dowladaha donorska la yiraahdo deymaha bixiya ama deeqaha bixiya labada way ka qaataan marka deymahaas waxaa loo isticmaalaa inta badan horumarka wadanka jidadka wadooyinka airboorada marka anigu hadda exactly deymahaas waxaa loo isticmaalay korka kama hayo oo dowladdii Maxamed Siyaad baa intooda badan dowladdii militariga ahayd yaa intooda badan isticmaashay laakiin waa caadi oo dowladuhu waa kala qaataan deyn nasiib daro inagu deyntu waqti bay leedahay waqtigii ay lahayd oo ay ahayd inaynu bixino iyada iyo korsaartkeedii baa nagu dhacay markii deyntu waqtigeeda ay dhaafto waxaa kaa xirmahaya inaad waddankaas deyn kale ka qaadatid marka waxaa nagu dhacday inaga hadda waddankeenu meesha u taagnaa waxay ahayd dunidii deymanka bixin jirto oo dhan deen bay nagu lahayd aanu bixin weynay oo aanu default samaynay sidaa darteed inaynu deyntii bixino oo nala ka cafiyo maahane deyn kale ma doono ma aanaa doolan karin caqabadaas saynu uga gudubna baan marka anigu wadahadal la bilaabay dowladihii deynta nagu lahaa iyo hay'adihii deynta nagu lahaa in deyntan la ku leeyahay xal loo helo iyagiina aan u xaqiijiyey inuu situationkiigu noo cafiyeyn hadda inaanu bixino deyntii waa gartay Soomaaliya xilli xun ay soo martay ilaa iyo dawladdii kacaanka markii ay dhacday 25 sano colaadi ah musuqmaasuq ka jiro dhibaato ba'an ka jirto adigoo ay ku curatay markaa ama markii ay ahayd dawladdii ugu horeysay ee ma aragtay federaal u hana qaada ama soo gasha ayaad ka mid ahayd dawladihii helay sidee bay kula noqotay xagga saameynta ama musuqmaasuqa wasaaraddaadu laguma ku yeelatay waa su'aal fiican 25 sano oo dawlad la'aan iyo dagaal sokeeya waxyaabaha ka dhaxalay waxaa ka mid ah maamul la'aan waxaa ka mid ah arrinta aad soo qaaday oo musuqmaasuqa corruptionka dunida marka laga hadlayo corruptionka wadamada ugu liita baynu galnaa safka ugu hooseeya baynu galnaa waa nasiib darro arrintaas marka waxyaabihii aan ku dadaalay bay ahayd muddada anigu aan joogay maadaama wasaaradda maaliyaddu ay maamulkii maaliyadda tahay in arrintaas inta anigu aan joogo aan wax ka qabto wax weyn baan ka qabtay wasaaradda waxaa loo yaqaanay in shaqo nadiifi ka socoto waxaan kalsooni badan ka helay dadka shacabka ah hay'adaha caalamiga ah noola shaqaynayay baarlamaanka kulligoodna waxay aqoonsadeen wasaaradda markii ugu horreysay inay ka socoto shaqo wanaagsan oo ka nadiif ah musuqmaasuq iyo corruption marka alxamdulilah arrintaasi arrin meel martay xagga wasaaradda bay ahayd waxaan markii ugu horreysay 23 sano markii ugu horreysay aan hirgeliyey miisaaniyaddii dowladda ay ku shaqayn lahayd dowladdii miisaaniyad la'aan ma shaqayn karto arrintaasi waa hirgashay iyaduna miisaaniyadda waa samaynay waa sharciyeynay waana fulinay innaga dhibaatadu in haysata ugu badani ma aha sharci la'aan waxa weeye sharciga la fulin marka alxamdulilah waxaan ku guuleysanay waqtiga isaga ah in miisaaniyaddii aan samaynay oo la sharciyeeyey ay sidii loogu talagalay u socoto oo hay-adina ama hay-ad weyn ha ahaato mid ha ahaato inayna hay-adina dhaafin miisaaniyadda intay ku lahayd mudane cawil waxaad aragtaa dalka haatan inuu ku tilaabsanayo doorasho ama ay u dhowdahay bila ay naga harsan tahay oo qura in ay dalku doorasho uu galo adiguna waxaa tahay siyaasi muddo xil ka soo hayay dowladda Soomaaliya federaalka ah siyaasi rugcada ah maxaad hadda kaaga aadan doorashooyinka ama muwaadiniinta siyaasiyiinta isa soo sharaxaya doorasho markay jirto fursad waxay keentaa ah in dadku ay helaan fursad u helaan inay dowladooda doortaan iyagu oo dowladooda soo dhistaan waxaa hadda dhacayaa nasiib darro maaha wixii lagu talagalay waa waxay ka badin weyday waxay ahayd inay dhacdo doorasho ah one man one vote wax loo yaqaano ama qof iyo codki taasay ahayd wixii lagu talagalay 2012 markii dowladda hadda jirtaa dhisantay in ay gaarsiiso dalka 2016 inaan lagu noqon baarlamaan la soo xulay in doorasho la galo qof walbaaba codeeyo halkaas ay ka soo baxdo baarlamaan dadku doortay xisbiya tartamay marka ciddii ku guuleysatay voodkaasna ay dowlad soo dhisto
arrinta hadda dhacaysa waa wax aan ka fogeyn tii 2012 maaha doorashadii qof iyo codkii maaha ha ahaatee still waa fursad isbedel keeni karta anigu marka fursaddaas inaan ka qayb galo waa rabaa ilaahay hadduu idmo inaan doorashada ka qayb galaan rabaa oo murashax baan ahay isbedel runaha loo baahan yahay okay inaad isa soo sharaxdo adoona hore xil uga soo qabtay dawladda Soomaaliya maxaa kugu dhaliyay waxaan xoogaal u ahay dhibaatada dalka haysata ha ahaato mid dhaqaale ha ahaato mid shaqo la'aan ha ahaato mid nabadgelyo ha ahaato mid siyaasadeed oo dalkii oo kala maqan oo kala fogaaday inta dagaal dhex maray la isdilay la kala guuray la kala irdhoobay aan helin fursad ay inta loo sameeyo dib u heshiisiin ay isku soo noqdaan is aaminaan arrintaas mas'uuliyaddeeda waxaa iska leh dowladda hadda markaa xilka haysa haddaan iyada la helin oo iyada la meel marinna waxyaabahan kale oo ka hooseeyo oo ama ah security ah ama ah dhaqaale xumo ma kacayaan ma soo noqonayaan anoo marka xoogaal u ah dhibaatada dalka ka jirta isla markaas xoogaal u ah fursadaha jira oo lagu xakamayn karo dhibaatooyinkaas ay ka mid tahay dadkan uu yahay dad wanaagsan shacab dhib ha dhacdo dagaal sokeeya ka dhaco laakiin shacab dowladnimada jecel shacab bislaaday oo dhibaatadii ay soo mareen ka dhaxlay inay bislaadaan oo og dhibtooda iyo dheeftooda labadaba garanaya ay ka mid tahay dad badan oo inaga dadkeena ka mid ah oo ama waxaysta ama aqoon leh inay dibadaha jiraan sugayaan dalku inuu dego say u soo noqdaan oo dalkooda uga shaqaystaan oo dalkooda dib u dhis wax uga sameeyaan anoo og inaynu leenahay saaxiibo badan oo dunida ah oo xaqiiqdii waxayna tari karaa haddaynu inagu waddada fiican qabsanno waxaasoo dhan xoogaal ah bay igu dhalisay inaanan ka maagan inaan ka qayb galo fursaddan hadda soo socoto oo ah doorashada 2016 marka waxaa ujeedada weyn oo ay tahay uga qayb gelaya inaan dalkayga u adeego sida hadda aan ka sheekeynayay anoo wasiira aan wixii aan qabtay yihiin wax la taaban karo haddii aan jigada ka weyn qabtana wixii aan wasiirada ku qabtay wax ka badan baan qaban karaa dariiqii aan ku qaban lahaa iyo fursaddiina waa ay muuqdaan waxay u baahan tahay qof shaqadana garanaya daacadna ka ah oo ammaano leh bay u baahan tahay inuu ka soo baxo doorashadaas waxaan isku tirinayaa inaan ahay qof kuwaas ka mida kuwa shaqadana u jajaban garanaya daacadna ka ah oo ka xalaala corruption iyo waxyaabaha inuu ku aadeeyo oo musuqmaasuq ummaddeena madaxdeena lagu aadeeyo waan muujiyey waktigii aan wasiirka ahaa waan muujiyey waxaana anigu ku lahaa waxaa kalsooni ka kasbay shacabka baarlamaanka hay-adiha caalamiga nala shaqaynayay intaba waxay aqoonsadeen shaqadii nadiifka ahayd oo wasaaradda ka socotay mudane waxaad aragtaa ama shacabka Soomaaliya ay isweydiinayaan inay u baahan yihiin madax daacad u ah dalka iyo hoggaanka qabashadiisa caqabado waxaa jira ah dhibaatooyin xagga dalalka dariska nala ah inaga haysta sida hadda Kenya iyo Ethiopia adigoo ah musharax maanta jecel inuu soo sharaxo ama xilka madaxweynenimada qabto waxay dadku isweydiiyaan muwaadin daacad u ah ama garan kara siyaasadda ay la damacsan yihiin dawladaha dariska la ah iyo beesha caalamka sidee baad aqoon isleedahay waa ku maareyn kartaa labadan dal ee Soomaaliya caqabadka xaggooda kaga imaanaya ama inay dhisanto looga baqayo inay diidan yihiin sidee u kala maareyn kartaa labada dal uguna bedeli kartaa xiriir caalami ah ma aragtay heshiis ama inay Soomaaliya u hirgasho dawladnimadeedii ama xuduudeedii dib ay u hanato muddadii aan shaqaynayay oo wasiirka ahaa waxyaabahan ka faa'iiday waxaa ka mid ahaa waxaan xiriir la lahaa dowlado badan oo inay la shaqaynayay alaqaad in la lahaa baan xiriir la lahaa ama mid dhaqaale ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdo waddan
markuu adduunka xiriir la leeyahay waddan kasta uu ku khasbayay inuu dowladaha adduunka xiriir la yeesho kuwa ugu muhiimsan waxaa weeye kuwa uu dariska leeyahay oo ayna kala maarmayn dowladahan dariska nahay marka inaynu xiriir wanaagsan la yeelano waa ku khasbannahay inagoo danaheena ilaashanayna oo aan isu dhiibaynin oo hadda aan dhul aana siinayn ama dad siinayn haddana inaynu xiriir la yeelano waa ku khasbannahay ha ahaado xagga isu socodka ha ahaado xagga nabadgelyada ha ahaado xagga tradingka iyo mushtarka waa muhiim lama kala maarmo ilaahay baa isku bogcad adduunkeena ka dejiyey xuduud aada u dheer baynu labadan wadan hadda aad carab dhowday labadaba xiriir aada u dheer baynu waxaynu la leenahay xuduud aada u dheer xuduudka aada u dheer oo ka sokow dad Soomaali ah oo ethnically Soomaali ah labada wadanba degan oo labada dalba isaga gudba marka xiriirkooda muhiim buu inoo yahay isla markaas inaynu inagu danaheena dhowrano waa waajib dowladda saaran marka waxyaabahaasaan isha ku haynaya waxaan isha ku hayn doonaa insha allahu kow inaan danaha dalka iyo dadka dhowro labo in si inaga dalkeena danihiisa ay ku jirto aan calaaqaad la sameeyo dowladaha sheeyaha ama ha ahaadeen kuwa dariska aan nahay ama ha ahaadeen kuwayna dariska ahayn marka lagama maarmayo in adduunka lala dhaqamo lagama maarmo dowladana kama maaranto inana ka maarmi mayno laakiin sida loola dhaqmayaa waa inay noqotaa si qorshaysan oo siyaasadaysan oo adiga danaha ku jirto aan u soo noqdo markaan dalka gudihiisa waxaa ka dhacaya shirar kala dugdugan marna lagu qabtay Garowe 2 iyo Garowe 1 mar lagu qabtay Kismaayo mar Muqdisho ka dhacday haatan markii ugu dambeysay waxa uu ka socday Baydhabo ama dawladda koonfur galbeed shirarkaasi dhacaya ee madasha qaran looga hadlaya ama hoggaanka ayaha dalka looga hadlaya sideeba u aragtaa adiga shirkaas waa muhiim haddii sida loogu baahan yahay loo maamulo oo aan la qalloocin shirkaas waa muhiim kuwii hore oo aad tilmaantay Garowe 2 iyo Garowe 1 iyo wixii la halmaayna waxay ahaayeen waxa ka soo baxay waxa kamid ahaa dawladda 2012 la dhisay kuwa hadda socdo oo hadda maanta ka socda Baydhabo kuwii ka horeeyay oo ka dhacay Garowe Muqdisho Kismaayo shirkaas waxaa qabta kooxda loo yaqaano madaxda qaranka waa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada oo isku jira baa qabta waa shirarka loogu talagalay inay diyaariyaan habka ay ku dhacayaan doorashada 2016 iyo dariiqii loo mari lahaa way socdaan waana fiican yihiin waxaan qabaa inay ilaa xad geedi socodkooda uu yahay beesha loogu talagalay uu marayo muhiimadu waxa weeye laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin natiijada aynu ka rabno doorashada inay ka soo baxdo natiijada aynu ka rabno doorashada inay ka soo baxdo ogow 25 sano la soo dhaafay dhowrkii sano markii la joogo barbayno dawlad dhisayni dawlad inoo hana qaadina ma jirto waxaynu ka sugaynaa oo shacabku ka sugayaa doorashadan 2016 dawlad hana qaada oo ay hogaaminayaan madax Soomaaliyeed oo aqoon dawladnimo iyo daacadnimo iyo aaminnimo isku darsatay baynu ka sugaynaa inay ka soo baxdo dhalisa qof iyo codkii in ay gaarsiiso 2020 kana ay gaarsiiso doorashada hadda baaqatay oo ahayd qof iyo codkii insha Allah oo ay noqoto tani markii ugu dambeysay oo la soo xulayo baarlamaan ee aan la dooranayn marka waxa ka muhiimsan shirarka hadda dhacaya waxa weeye waxa ka soo bixi doona shirarkaas waxay dhali doonaan oo ah dawlad hanaqaada oo dadka Soomaaliyeed ku kalsoon yihiin oo ay hogaaminayaan madaxda aan sheegay madax aan corruption lagu tilmaamayn madax aan lagu tilmaamayn iyo qabiil iyo inay dadka u kala ahaato musuqmaasuqa aynu ka cabanno dadku waxay moodaan lacag kale inuu yahay waxa ugu xun midka loogu kala ahado dadka ama qabiilha loogu kala ahado ama deegaanka loogu kala ahado oo dadku ku kala iroobaan oo ku si kala fogaadaan
marka runtii waa fursad kale oo dahabi ah 2016 oo aan rajeynayno in sidii kuwii ka horeeyay u baaqsadeen ayna u baaqsan 2012 dowladda la dhisay waxay ahayd dowladda ku meel gaar ahayn wax badan qaban kartay oo dowladihii ku meel gaarka ahaa ayna qaban karin fursadaas ma hirgelin sidii loogu talagalay uma hirgelin waxaana ku dhaliishaas leh dowladda hadda jirta oo dhalatay 2012 waa ka xumahay qaarkeeda hore aan ka mid ahaa ku meel gaarnimada in laga baxaa waxay noqon kartaa muddo 2 af leh haddaan si taxadar loo maamulin muddo 2 af leh waxaan uga jeedaa dowladda ku meel gaarka ahayn waxay geli kartaa adduunka la geli kartaa heshiisyo caalami ah oo dheer oo waqtigeedu dheer yahay qiimahooduna culus yihiin heshiisyadaas haddaan dowlad lagu kalsoon yahay oo musuqmaasuq iyo wadannimo xumo ka dheer haddayna maamulin waxaa dhex geli kara heshiisyadaas waxyaabihii musuqmaasuq ahaa hadda aynu ka hadlaynay baa dhex geli kara waxaa dhex geli kara dana shakhsiyeed hadday taasi dhacdana waxaa lumaya danihii dalka oo heshiisyadaas saameynayeen baa lumaya marka dowladda aan ku meel gaarka ahayni marna waa fiican tahay hadba say u shaqaysay ku xiran tahay haddii aan si taxadar leh aan loo maamulin oo dad lagu kalsoon yahay ayna maamulin oo dalka aynu tilmaanayo ammaanada iyo aqoonta lahaa ayna maamulin waxaa ka faa'iidaysan kara dowlado shisheeye heshiisyo shisheeyaha ka faa'iidaysan kara marka arrimahaas hadda anigu waa dhicin ma lihi laakiin waxaan ogahay inay dhici karaan oo ka dhici karaan dadka madaxda ah oo musuqmaasuqa lagu tilmaamo waxaad aragtaa haatan inay ka harsan tahay doorashada muddo 2 bilood ah ilaa welina dalka kama muuqdo saasaan ay dalku u socdaan doorasho inay dhici doonto ah ama siyaasiyiinta ay isu soo sharaxeen ama mandatekoodii la fasaxay uu madaxweynuhu fasaxay iyadaasna maxaad ku tilmaami kartaa waan ogahay shaqada hartay hadda iyo muddada hartay xogaa inay iskhilaafsan yihiin oo aad moodid shaqada hartay inaan lagu dhammayn karin muddada hartay 2 bilooda waxaa dhici karta marka malayn mayo in rasmi ahaan muddada loo korinayo laakiin waxaa dhici karta inay ku jiitanto 2 bilood ka badan inay ku jiitanto muddadu oo ay 3 bilood 4 gaarto waxa dhici kara weeye waxaana keenaysa taas shaqada culayskeeda iyo muddada hartay yaraanteeda waxaad aragtaa maamulada markii la fiiro sida Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inaysan wali dhisnayn doorashadiina 2 bilood ay ka dhiman tahay halka maamulka Khaatumana aanan hadal ka qaad iyo wada hadal uusan ka jirin maamulooyinkan kale ma aragtay ay ka dhiman yihiin dhanka kale Somaliland inaysan wada hadalkii iyo xagga doorashooyinka 2016 ka dhacaya inaysan ku jirin maamulooyinkaasi kala dhiman maxaad aragti ahaan iyo siyaasi ahaan ku tilmaami kartaa waa kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin مثلا في Somaliland way ka duwan tahay kuwa kale aad tilmaantay Khaatuma waa ka duwan tahay kuwa kale oo مثلا Hiiraan iyo Jowhar Dhexe Somaliland iyo waaba diideen systemka kuma jiraan way iyaga sheegtay inay dowlad gaar yihiin hamigooduna waa inay dowlad gaar noqdaan marka systemkan isaga ah Somaliland ahaan uma jiraan dadka u dhashay waqooyi waa ku jiraan oo hadda dowladda hadda isna waa ku jiraan wasaaradaha waa ku jiraan xildhibaanada waa ku jiraan laakiin inta tiga la yiraahdo Somaliland iyadoo toos uga soo qayb gelin doorashadii 2012 uga soo qayb gelin tan diyaar u ah inay uga soo qayb galaan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan muddo lagu mashquulsanaa in dowlad goboleed loo dhiso arrintaas waa socotaa laakiin weli ma dhameystirmin waa ogtahay khilaafaad dakhliga way iska jiraan waan rajeynayaa inay dhamaadaan oo muddada hadda 2 bilood ka hartay doorashada inta ayna dhamaan ay dhamaadaan waan rajeynaynaa Khaatumo dowlad goboleed ahaan looma aqoonsano kama soo qayb gelin doorashada kama soo qayb gelin ma aqaan hadda ka bacdi wax dhici doona 2 bilood hartay wax dhici doona laakiin ilaa hadda dowlad goboleed dowladda dhexe aqoonsatay oo saf ugu jirta sida dowlad goboleedyada kale ugu jiraan ee doorashada ka qayb gasho ma aha marka sidaas u kala gedisan yihiin
waa tahay haatan fursadda kaaga aadan ay Somali Channel ay ku siinayso ugu dambeyntii maxaa dadka ku daawanaya ama ku dhageysanaya aad hawada u marin lahayd marka ugu horeysa waxaan leeyahay bil Ramadaan baa lagu jiraa dadka Soomaaliyeed soonkan Allah ka aqbalo Allah u sahlo waxaan hubaa in badan ayaa ka mid ah inaynan ay dhici karto xataa wax ku afurayna haysan taas marka laga tago 2016 waa ku noqonayaa waa fursad kale oo soo martay Soomaalida waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa fursaddaas inayna ka lumin oo dawlad Soomaaliyeed oo istaahisha dadka Soomaalida ah oo dhiban oo wax badan dhib badan in laga qaado u baahan inay ka soo baxdaan rajaynaya inta ku mashquulsan doorashadaas iyo inta aan ku mashquulsanayn intaba waxaan ugu baaqi lahaa inay waxay gelin karaan awood waxay gelin karaan geedi socodka doorashadaas iyo natiijada laga sugayo inay geliyaan inay ku dadaalaan inay doorashadaas ay fursadaas ay markaa Soomaaliya ka baaqan waliba waxa xil toosi ka saaran yahay inta officially rasmi ahaan ugu magacaaban inay doorashadaas maamulaan oo ugu horeyso madaxda qaranka oo hadda fadhida Baydhabo oo ay ka mid tahay gudiyada doorashooyinka oo la magacaabay ay ka mid tahay madax dhaqameedyada xulaya delegateska soo dooran doona xildhibaanada oo ay ka mid yihiin delegateskaas laftooda la dooran doono la xuli doono wufuudda wufuudda ama delegateska oo ay ka mid yihiin xildhibaanada la dooran doono xildhibaanadu waa hay'adda ugu muhiimsan dowladnimada habka dowladnimada oo dhisan iyaga weeye hay'adda dooran doonta madaxweynaha waa iyaga hay'adda ansixi doonta ama diidi doonta ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu magacaabo waa iyaga hay'adda ama dooran doonta ama ansixi doonta ama diidi doonta wasaaradda ra'iisul wasaaruhu soo dhiso marka waxaad garanaysaa waa xubinta ugu muhiimsan dowladnimadeena baarlamaanka marka xil intaa leeg baa saaran ama baarlamaanka ha ahaato ama gudiyada ka horeeya oo iyagu inay soo baxaan ka shaqeynaya ha ahaatee waxaan Soomaali ugu baaqayaa in fursaddaas la ilaaliyo 2016 iyo 2016 waxa Soomaaliya ka sugaysaa wax qaali ah waxa laga sugayaa dawlad markii ugu horeysay sida u dhacday dawladdeena 2019 waxa laga sugayaa dawlad hanaqaad ah oo ka duwan kuwii ilaa hadda ina soo mariyay oo magaca u badnaa inay magac yihiin intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka aynu la yeelanay wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta mudane Maxamuud Xasan Suleymaan oo ku magac dheer mudane Cawil inta aynu ku kulmi doono waraysi kan oo kale ah waxa idinkaga tageynaa Ramadaan Mubaarak dhanka farsamadana waxa iga caawinayay saaxiibkay Abuukar Bataal aad iyo aad u mahadsantahay